asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow halkaa nagala socotaan waa jijiga f m ay mawjadeedu tahay sagaal dhegeystayaal maanta barnaamijka bandhiga waxaan marti nooga ah maxamed cabdulaahi ku magac dheer qalbi. maxamed cabdulaahi ayaa ah bare jaamacadda jijiga university toddobaadkii horena ku soo qaatay saameynta uu lahaan kara ama dadka ku yeelan karo face maskiga haddii loo isticmaalin sidii loogu talagalay. maantana waxaan barnaamijkeenna bandhiga ku soo qaadan doonaa laba arrimood ama laba qodobood. labada qodobood waxaa ka mid ah saameynta uu ku yeelan karo cudurka covid-19 ee bulshada danyarta ah iyo musiibooyinka fatahaadaha ee ka dhacay deegaankeenna gaar ahaan gobolka Shabeelle iyo gobolka Liibaan. maxamed cabdulaahi ayaa ah baraa weyn ee jaamacadda jijiga university oona ka faallooda oo qoraa weyn ah oo ka faallooda arrimaha bulshada. ku soo dhowow maxamedow adigoo ku bilaawaya magacaaga. wariye cali waad mahadsan tahay, waan dhowahay. magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali oo ku magac dheer qalbi. runtii toddobaadkii lasoo dhaafay sidaadii dhegeystayaashanada siday u xasuustaan waxaan ka soo warranay khatarta ka imaan karta haddii sida loogu talagalay aan loo isticmaalin maskarada ama bahasha lagu yiraahdo afka qalaad face maskiga. maantana sida aad ka dhawaajisay waxaan barnaamijkeena ku mushaaxi doonaa labada qodob ee aad ka dhawaajisay oo ku saabsan xaaladaha xasaasiga ah ee taagan. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. inta aanan barnaamijka guda gelin, marka hore waxaan salaan diiran hawada u marinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay ku dhaqan tahay, gaar ahaan dhegeystayaasha barnaamijka bandhiga ee raadiyaha FM Jigjiga. maxamedow haddaan sii guda galno su-aasheeda koowaad ayaa ah sida la wada ogsoon yahay cudurka covid-19 ee adduun weynaha saameyn weyn uu ku haya gaar ahaan dalkeena Itoobiya ayaa tiradaba marba marka ka sii dambaysa sii kordhaysa. iyadoo ay taas jirta ayaa haddana lasoo sheegay deegaankeenna gobolka Shabeelle iyo gobolka Liibaan fatahaadahaas ayaa marar badan soo laabta. maxamedow maadaama adiga aad arrimaha bulshada in badan ka hadashid, maxaad ka oran lahayd fatahaadahaasiid? waad mahadsan tahay cali. runtii masiibada fatahaadda waa mid dabiici ah oo waqti roobaad kasta ka dhaca dhulka qaybihiisa joogga hoose. waxayna masiibadan ka dhacday meelo badan oo ay ku dhaqan tahay ama oo ay ku dhaqan yihiin bulshada Soomaaliyeed. sidii caadada ahayd, marka ay bulshada Soomaaliyeed soo wajahda masiibooyin ama ha ahaadaan mid dabiici ah ama ha ahaadaan mid dad samee ah, waxaa lagu yaqaanaa bulshada Soomaaliyeed in ay la gaaraan gargaar xooggan oo ku dheehan yahay dareen walaaltinimo. maantana dhibaatada jirto lama qiyaasi karo oo aad bay u adag tahay oo aad bay u baahsan tahay. qaar bay maciishadoodii suuqyada biyihii qaadeen, hoygii qoysaska biyo buuxiyeen. sidoo kaleeta waxaa dhacay in goobihii lagu dhaqnaa ay noqdeen meel biyo fadhiisan ah. waxaa ka dhacay khasaaro naf iyo maalba geystay. fatahaadda waxay saamayn ku yeesheen goobo ay degan yihiin boqolaal qoysas ah. runtii xaaladdaas waa xarin aad u adag. bulshada Soomaaliyeedna sidii lagu yaqaanay oo caadadu ahayd in marka ay bulshada Soomaaliyeed ay soo wajahdo masiibooyinka noocaas oo kale dabiiciga ah, waxaa lagu yaqaanaa in ay bulshada la gaaraan gargaar xooggan oo walaaltinimo. meelo badan ayaa runtii laga sameynayaa gargaar aad u fara badan sida Shabeelle iyo sidoo kaleeta Liibaan, balse waxaan dhihi karaa kuma filla. khasaaraha uu geystay ma aha mid lasoo koobi kara. meelihii ay deganayeen ayay ka barakaceen, waxay ku sugan yihiin goobo kaleeta. qaar ayaa waxay ku sugan yihiin iskuulaadka ayaa hoy looga dhigay. iskuulaadkaasayta hoy uma sii noqon kara. waxaa loo baahan yahay xal waara ayaa loo baahan yahay. qof oo masiibadaas ay la soo gudboonaatay oo gurigiisa waxba aanan kala bixin, calalkii uu xirnaa ma ogi aanan wax hanti ah gurigaas aanan kala bixin, xaaladda uu ku sugnaan kara waa mid aad u adag. maasha allah, dadaalka ay sameynayaan bulshadeenna ay geysanayaan waa mid aad loo booriyo. sida fariimaha amaba macnaha xogta iga soo gaartay sida Shabeelle iyo sidoo kaleeta
gobolka liibaan maamulka iyo bulshada ku dhaqan dadaalka ay sameeyeen, sidoo kale ganacsatada gacanta ay ka geysteen masiibooyinkaasayta waa mid runtii aad loogu riyaaqa. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa bulshada in ay sii xoojiyaan mucaawimaadaasayta. Dhanka kaleeto qodobkan marba haddii aan ka hadlay, waxaa muhiim ah inaan taabto doorka ay ku leeyihiin gargaarka hablaha Soomaaliyeed. Runtii meel markii ay ka dhacdo masiibo ay ka dhacdo, doorka ugu horeeya waxaa runtii gacan ka geysta hablaha Soomaaliyeed ayaa runtii door ka geysta. tusaale ahaan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan u jeeday tv-ga ayaa mar waxaa ka soo galay barnaamij oo mucaawimaad la bixinayo, qoysas la siinayo cunto. barnaamijkaasita waxaa bixinayey xafiiska haweenka iyo dhallaanka ayaa bixinayey. xafiiskaasaytana runtii waxaa haysta qof dumara ayaa mas-uulka ah. maasha allah, taasi wuxuu ahaa runtii arrinkaas wuxuu ahaa arrin aan aad ugu farxay. xafiis kaleeto oo runtii bixinaya mucaawimo ma arkin sida ay dhibaatooyinkan u soo galeen. taasina runtii waxay noo caddaynaysaa in hablaha Soomaaliyeed mar weliba ay yihiin hormuudka bulshada. marka ay masiibooyinkanayto bulshadeena ay soo wajahaan, gacanta ugu weyn runtii waxaa ka geysta hablaha Soomaaliyeed ayaa ka geysta. in ay yihiin laf dhabarta bulshada, cid ay shaki ooga jirta ma laha. sidii si la mid ah maantana doorkooda heerka ay uga soo baxayaan iyo doorkooda halka uu taagan yahay waa mid runtii aad loogu farxo oo aad loogu riyaaqa. sidoo kaleeto bulshada qaybaheeda kaleeto, ganacsatada sidoo kale ganacsatada dadaalada ay ka geysanayaan iyo gacanta iyo mucaawimada ay ka geysanayaan fatahaadaasayta waa mid aad loogu farxa. sidoo kale ayagana runtii aad baan ugu riyaaqay, aad baan usii bogaadinayaa arrimahaas oo dhan. aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaantii, maadaama ay fatahaadana tu dabiici ay tahay, ayaa haddana baahidan inay baahidii macnaha ay dabooli kareen ayaa haddana gacan weyn bay ka gaarsiiyeen baad leedahay. haa, aad bay gacan weyn uga gaarsiisteen. runtii xaaladaha sii jiray aad bay u adkaayeen, ayadoo dadka ay la sii fikirsanaayeen welwelkan caabuqan coronavirus ee dunida saameeyey, ayaa haddana waxaa soo wajahay fatahaadahan. xaaladii runtii aad bay usii cakarnaatay. ayagoo markii horeba bulshada qaybaheeda kala duwan meel walbo ay joogaan ay sameynayeen gargaar ay fidinayeen, haddana waxaa soo ifbaxay masiibooyin kaleeto oo dabiiciga ah. kheer allah nooga dhiga. waxaan rajay haddana wax sidoo kale waxaan bulshada u tabinayaa in gargaarkooda ay sii xoojiyaan. allaha ka sawaabiyo. jazaaka allah. aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamedow qalbiyo. haddaan sii gudagalno su-aasheenna xigta ayaa ah, iyadoo musiibooyinka ay sii badan yihiin, gaar ahaan cudurka coronavirus deegaanka iyo dalkiiba caalamka oo dhan dhibaato weyn ku haya. madda kalena waxaa ka sii daranba haddana deegaankeenna gaar ahaan gobolka liibaan laga soo sheegay, iyadoo fatahaadii sii dheer tahay ayaa haddana waxaa sii dheer cudurkaanayde shuban biyoodka. maadaama iyadana musiibo kale oo sii dheeri ay tahay, maxaad ka oran lahayd? gobolka liibaan gaar ahaan degmada Doolo-Ado, xaaladaheeda runtii xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad aad u adag. ayadoo markii hore laga welwelsanaa caabuqa coronavirus ayaa waxay soo wajaheen fatahaado ayaa soo wajahay oo runtii khasaaro aad u ba'an geystay. haddana mar kaleeto waxaa soo ifbaxay xanuunka shuban biyoodka, taasoo runtii inta aan maqlay tiro ahaan ay gaaraysa tiro dhan ilaa 6 qof kor u dhaafaysa ayaa ku naf waayey. sidoo kaleeto xarumaha caafimaadkana waxaa ku sugan tiro bukaan tiradooda ay aad u badan tahay in ay ku sugan yihiin ayaa runtii xooga isoo gaaray. maamulka gobolka dadaalada ay sameynayaan iyo tallaabooyinka ay qaadeen runtii waa mid aad loogu farxo oo aad loo bogaadiyo. sidoo kaleeto degmooyinka ayaa waxaan u jeeday mucaawimaad ay soo dareen oo runtii dadkii fatahaadda soo wajahay soo gaarsiiyey ayaa sidoo kaleeto aan arkay. arrimahaasoo dhan waa in aad loogu farxo. xaaladan kaleeto ee soo korodhay oo shuban biyoodka ayada naftigeeda waa masiibo kale oo u baahan gargaar dheeraad ah. runtii xukuumadda waxay u dirtay gaadiid ayay u dirtay sida ambulansyada oo kaleeto. ha ahaato muxumo mar weliba markay meel wax ka dhacaan laguma daayo dowladda oo keliyata. doorka ugu horeeya waxaa ka soo baxa bulshada ayaa ka soo baxa.
dhalinyarada runtii dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maasha allah aad baan ugu riyaaqay. waa arin aad loogu farxa. maamulka sidoo kaleeta, ganacsatada sidoo kaleeta, xaaladda adag ee maanta taagan, sida adag ee bulshada gobolka liibaan iyo sidoo kaleeta gobolka shabeelle sida ay isu garab taagan yihiin, iyaba sidoo kaleeta meelaha soomaalida ay ku dhaqan tahay oo masiibooyinkan ay ka dhaceen sida ay isu garab taagan yihiin iyo gargaarkan ay bixinayaan waa arin aad loogu farxo. waana dabeecad lagu yaqaanay soomaalida markii xaaladan oo kaleeta markay ay dhacdo in ay muujiyaan dareen soomaalinimo. aad baan arrinkaasna u bogaadinayaa maasha allah. waa tahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay runaantii. haddaan dib ugu soo laabto su-aashayda xigta, maxamedow waad og tahay cudurka coronavirus maadaama cudur argagax xun uu yahay oo laga cabsi qabo oo haddana tiradiina sii kordhaysa, saameyn uu ku yeelan karo caaquba coronavirus bulshada danyarta qaab noocee baa lagu caawin karaa daad is leedahay? weriye cali, runtii caabuqan coronavirus bulshada danyarta ah waa saameyn aad u adag ayuu runtii ku yeelan karaa. saameynta uu ku yeelan kara aad bay u weyn tahay. runtii tusaale ahaan haddii aan soo qaato qiso aan la wadaagay bulshada igala socota baraha bulshada oo ka mid a runtii saameynta uu u keeni kara amaba saameynta uu u keenay caabuqan coronavirus bulshada danyarta ah. waxaa jirtay gabar da'yar oo hooyo 2 ubad ah. gabadhaas waxay qoyskeeda ku maamuli jirtay waxa ay ugu soo xoogsata, waxa ay caruurteeda u soo xoogsata oo uu ilaahay u soo arsaaqa ayay caruurteeda ku maarayn jirtay nolosha qoyskeeda. gabadhaas shaqadeeda waxa ay ahayd dharka ayay u meeri jirtay dadka. caabuqan coronavirus markii uu bilowday waxaa dhacday in dadkii ay dharka u meydhi jirtay ay dhahaan maadaama dalkii ay ka bilowdeen xanuuno faafaya, adigana maadaama aad howlo ka qabanaysid meelo kala duwan, hadda kadib waad naga raalli ahaanaysaa, howl nooma qabanaysid. gabadhaas nolosheeda waxa ay ka dabari jirtay dharkaas ee u dhaqayso dharkaas ee dadka u dhaqaysa ayay nolosheeda ku dabari jirtay. xaaladdaas marka ay soo wajahdo runtii qof weliba wuu qiyaasi karaa xaaladda soo wajihi karta nolosheeda iyo nolol maalmeedkeeda. xaaladdaasaytay qoftaasayta waxa soo wajihi kara qof weliba waa u qiyaasi karaa, maadaama ay gabadhaasi xoogsato oo ay guri dad ka shaqayso oo ayna ku tiirsan yihiin qoys. maadaama ay tahay qof xoogsato ah oo haddana qoys ku tiirsan oo qoys maamulaya. sidaas si lamid ah waxaa jira meelo kala duwan ayaa jira oo 1 iyo 2 aan la oran karin ayaa jira oo shaqooyinkoodii uu ka soo xirxiray caabuqan coronavirus. dadkaas waxay ku tiirsanaayeen shaqooyinkaas ay qabanayeen. shaqooyinkii ay ku tiirsanaayeen hadduu caabuqan coronavirus uu shaqooyinkii ka soo xiray, xaaladii iyo qoyskii meeshii lagu tiirsanaa iyo ilihii dhaqaalihii soo galaya haddii uu ka istaago, xaaladooda runtii aad bay u adkaanaysaa. taasina runtii waa mid bulshada looga baahan yahay in la iscaawiyo, in oo dib la isu fiiriyo. tusaale ahaan waxaa jira qof da ah oo danyar ah ayaa jira. waxaa jira qof da ah oo aan owlaad lahayn ayaa jira. dadkaasoo kaleeto ayaa u baahan xilligan adag in la isxasuusto. waana midda loo baahan yahay in xoogga la saara. qof weliba waxaa ku agnool bulsho danyar ah ayaa ku agnool. qof weliba haddii uu caawiyo inta ka agdhow, dad badan ayay noloshooda runtii bedeli kartaa inta laga baxay xaaladahan aadka u adag. sidii caadadu ahayd bulshada soomaaliyeed caawimaadda iyo gargaarka ay u fidanayaan dadka masaakiinta ah in ay sii xoojiyaan ayaan taasna ku bogaadinayaa bulshadayda. aad baad u mahadsantahay maxamed. waa runta gabadhaas aad inooga sheekaysay oo qoyskeeda saameyn in leeg buu mataqaanaa reerkeeda ama qoyskeeda uu saameyn inta leeg baa soo gaari karta. waa mid aad looga naxa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdulaahi ku magac dheer qalbi ahna bare ee jaamacadda Jiga University, mar kastaba nooga faallooda arrimaha bulshada. run ahaantii aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay qaabkaad nooga sharaxday. waad ku mahadsan tahay ku leeyahay. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano, halkan waxaa nooga dhan barnaamijkii bandhiga. barnaamijkan bandhiga ayaan kusoo qaadanay maanta marti nooga ahaa maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer qalbi.
ilaa barnaamijkan barnaamij lamid aan ka kulmi doono sidaa iyo nabadey